weli ma maqashay qisada iyo sheekada xanuunka badan ee ninka reer Falastiin gabadhii iyo wiilkii uu awoow u ahaa ay Israa'iil duqeyn ku dishay ugu dambeynna isagina ay dishay isbuucan Isniintii taas oo geeridiisu taabatay qulubta malaayiin qof oo caalamka ah kuwaasoo ku xirnaa barihiisa bulshada lana socday qisadiisa inta la sheegay shacabka Israa'iil iyo reer galbeedku ay la murugoodeen geerida gabadhii sireed Reema iyo Taariq markii hore Khalid Nabahan waxa uu ahaa awoow reer Falastiin ah oo markii hore lagu bartay muuqaalo ay si wada jir ah u soo gudbin jireen isaga iyo gabadha yar ee uu awowga u ahaa Reema taas oo muujinaysay jacaylka uu ilmaha yar ee awowga u yahay u qabo markasta balse nasiib daro bilowgii dagaalkii Gaza sanadkii hore waxa isla hal mar Israa'iil ay la beegsatay duqeyn gurigooda kuna dishay gabadh yareed Reema iyo walaalkeedii Taariq waxaana lama filaan ku noqotay awowihii geerida gabadh yareed Reema iyo wiilkiisa Taariq ee adduunka ugu jeclaa muuqaalkan oo ahaa muuqaalkii baraha bulshada qabsaday isaga oo gabadh yareed oo meed ah kor u haya kuna la ruuxi nafteedii yani ula jeeday nolosheedii oo dhan ayaa ahayd gabadheedii isaga oo meedka gabadh yareed macsalaameynaya habsiinaya aadna u calacalaya ayaad arkaysaa muuqaalkan ayaa waxa uu noqday muuqaal qarxa oo baraha bulshada qabsada nasiib daro isbuucan Isniintii Khalid Nabahan ayaa isaguna ku dhintay duqeyn ay fuliyeen ciidamada Israa'iil iyagoo la sheegay inuu ku dhintay madaafiic ay rideen taangiyada Israa'iil Allah u naxariistee geerida Khalid Nabahan waxay soo jiidatay dareenka caalamka oo dhan iyadoo dad badan ay baraha bulshada ku xuseen kuna tilmaameen inuu ahaa astaan u taagan xanuunka iyo dhibaatada ay la kulmaan qoysaska reer Falastiin ee ku nool Gaza inta waxa uu soo tacsiiyay geerida Khalid Nabahan oo qisadiisa si dhow la socday madaxweyne Erdogan daawada soo dhawaada muuqaalkan oo shirkaray sidoo kale repost noo dhaha hana ilaawin inaad follow na soo tiraahdo mahadsanid